arooskaygu saameynta uu yeeshay horta sida hadda loo qaaday ama loo buunbuuniyey waxay nolol noqotay wax maaragtay dee la yaab ah. arrinta la yaabka noqotay baa waxay tahay oo hadda magaalada dhexdeeda macalaa anigana saameyn ugu yeelanaysa in qof reer mudug ah uu ka ooyo xalfadiisa arooska. reer muduga badankood waxaa ay u ooyaan hadday ooyaan oo calool adoog kabo waa geeri iyo wax lamid ah ama naxdin, laakiin qof reer muduga aroos u ooyay meel walba ha joogee waa adag tahay si ay ku dhacdo. marka hore waa caadi, waa iska faraxsanaa si weeye markaa kana dana waa qirooda fitkayga ooyilaaye waa la fariisiye. marka anu waxaan isdhihi karaa dadka kale kama qalbi jilicsanid ama kama qalbi wanaagsanid, laakiin dareenkii markaas xalfadda dhexdeeda aan ka arkay baan muujinayay anoo xalfadii maaragtay inaan kasoo qeyb galo ay waqtigiina igu adkaatay. markii horena xalfadda aanan rabin inaan kasoo qeyb galo, laakiin inay gabadheeda xalfadda dhigata aan rabay. marka wixii aan diidayey quruxdoodii baan arkay markii aan meesha imid dareenkaygana wuu isbedela. dadka dhan waxay dhahaan, qaar waxay dhahaan waddaan nagu furtay, qaar kale waxay dhahaan niyo waa naga tiirisay oo dumarkii maaragtay waxa weeye waxay naga tabanayeen inaan ahayn dad maaragtay jacaylka wax ka yaqaana. laakiin dhalinyaradii asxaabteeda ahayd oo xalfadda qabanqaabisay baan waxaan u arkay dad reer magaalo oo nolosha fahansan inay ahaayeen sida quruxda badan wax noogu dhigeen rag iyo dumarba. ma arkin dad niyiri dad waalan miyaa dadkan ama dad niyiri dadkan isku ooyey waa maxay, laakiin dad waxaan ku arkay social media inkastoo aanan gelin anugu qof aroosan ahay, dad waxaa liisoo sheegay ku hayay nin reer muduga waxaa kama suurtoobaan iyo ninkaa reer muduga marka todobada ka baxo waa dilaynaa maadaama uu isjilciyey ma garata. marka waxaan dhihi lahaa dee wixii horta diinta islaamka ogoshahay qof bilaadan horta looma daba fariisanayo. dadka qaar ba waxay kuleeyihin gurigiisa ku ooyo, aniga hadda wax khaldan ma sameyn. xalfadeeda arooskana waxaa weeye dee ama aan ka ooyo ama aan ka baroortay waa wax maaragtay dee waxa weeye ii khaasa, laakiin diintan islaamku baroor ma ogola. waxay ogoshahay in farxad iyo oohin iyo qiiro la muujiyo. wallaahi dee ragaal racyoodku waa runoo dad adag wey soomaalida kale marka loo fiirsho qaabkay u hadlaan qaabkay u dhaqmaan, laakiin taa kama turjumayso micnaha inay ragaal racyoodku ka qalbi adag yihiin soomaalida kale, laakiin inaysa jacayl aqoon. wallaahi haa reer mudug waa dad aada u xamaasad badan. gabayadii hore soomaalidana waa dhegeysataa maranaya xaalka reer mudug laga waswaasiyo gabaygii suldaan cismaan yuusufiyo. marka waa laga yaabaa inaysa ooyin, laakiin ay dhahaan ninkaas iskoorkiisa aan uga jebino ama wuxuu sameeyey wax ka duwan saa u keenno. reer mudug inay waxyaala kale isku dayaan guurguurasho iyo wax lamid ah. ugu dambeyn reer muduga ama ragaal racyoodka waxaa u baaqi lahaa inuu qof walba dee xor u yahay wixii wanaagsan oo diinta islaamku farayso, inay noo mahad celiyaan, inay waxa weeye noo duceeyaan baan qof walba oo soomaaliyeed kula dardaarmaya.